assalaamu calaykum asxaabta sharafta badan ku soo dhowaada kanaalkeena wax ka baro. Maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc aad u qiimo badan kaas oo ciwaankiisa noqon doona xikmado dhaxalgal ah. Ku soo dhowaada barnaamijkeena maanta. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. ka faa'iidayso xigmado dhaxalgal ah. Qodobka koowaad, geedka waxaa lagu qiimeeyaa miraha ama harka uu bixiyo. Bini'aadamka waxaa lagu qiimeeyaa ficilada ay sameeyaan. Camalka wanaagsan marnaba ma khasaaro. Qofka beerta aadaab iyo habdhaqan wanaagsan wuxuu gurtaa miraha xushmada iyo jacaylka dadku u hayaan. Qodobka labaad, ka fogow xanaaqa. Adiga keliya ayay ku dhaawacaysaa. Maxaad la caroonaysaa? Haddii aad saxan tahay looma baahna inaad caroto. Haddii aad qaldan tahay xaqba uma lihid inaad xanaaqdo. Qodobka saddexaad, qaladka ugu weyn dadku sameeyo inta badan waa waxay dhegaystaan kala bar, waxay fahmaan rubac. Waxay sheegaan laba jibaar waxa ay maqleen ama dhacay. Qodobka afraad, caqabaduhu kuma joojin karaan. Dhibaatada kuma joojin karto. Dadka wax kaa sheegaya kuma joojin karaan. Adiga keliya ayaa naftaada joojin kara oo dib u dhigi kara. Qodobka shanaad, dadka qaarkii waxay isku dayaan in ay banaanka soo dhigaan wixii kaa qaldan. Sababtoo ah ma xamili karaan mana aqbali karaan wanaaga iyo waxa saxda ee aad sameynayso. Qodobka lixaad, marnaba aad ha ugu fikirin wixii tagay waxay kuu keenaysaa murugo. Marnaba aad ha ugu fikirin mustaqbalka wuxuu kuu keenayaa walwal iyo walbahaar. Ugu noolow maantadan adigoo dhoola cadaynaya waxayna kuu keenaysaa farxad iyo reereen. Qodobka toddobaad, goortii maskaxda iyo jirku qofku daciif yahay xaalad kasta waxay kuu noqotaa dhibaato. Goortii maskaxda iyo muuqaalka jismigu qofku xoogan yahay xaalad kasta waxay kuu noqotaa fursad. Qodobka siddeedaad, maseer yar waa caafimaad xiriirka. Way wanaagsan tahay haddii jeer inaad ogaato in qofka ka baqaayo in uu ku waayo. Qodobka siddeedaad, maseer yar waa caafimaad xiriirka. Way wanaagsan tahay haddii jeer inaad ogaato in qof ka baqaayo in uu ku waayo. salaamullaahi calaykum. وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني